xamse cabdi barre wuxuu ka mid ahaa dadkii lagaga qaxay magaalada muqdisho kadibna xasan iyo reerkooda u dirsadeen yaban way soo celiyeen haddana maleeshiya u dirsadeen markuu soo laabtayna wiilkoodii oo baari waa u dhaga nugul buu ahaaye xilka ayay u dhiibteen waxaanu sheeganaya uu leeyahay ogaadeen baan u dhashayna inaysan waxba ka jirin baan anigu qabaa kolley waa la baari doonaa waxaa sidaas yidhi wasiirka warfaafinta maamulka Puntland oo maanta qodobad dheer ka jeediyay xaaladda siyaasadeed ee dalku uu ku jiro waxaana si weyn u duray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ku tilmaamay in uu wacal yahay oo san ogaadeen u dhalanin waa hadalka nuxurkiisa iyo sida uu dhacayo bal horta waan dul istaagi doonaa oo hadalkaas meel fiican baan kaga soo noqon doonaa ee adiguna muuqaalkan ha isdhaafinin si fiicanna u dhageyso qodbadiisa iyo inta uu ka yidhi halkaasna aynu wada dhageysano wasiir maxamuud caydiid xamse ugu koob 9kiina dadka xamar lagaga qaxay buu ku jiray taa laftigeeda shaki baa ku jira dhalashadiisa laftigeeda shaki baa ku jira aan malaynaya waayo xasan iyo groupkiisa damajudiid baa Yemen u dirsaday markii dambana iyaga u dirsaday meesha la yiraahdo Malaysia kadib iyagu NGO uga shaqeynayay kadib hadeer waxa weeyaan isagoon xafiis ay u dhiibteen 4.5 ku fadhiyo oo qof siyaasadda matali kara loo dhiibi karayay wiilka ay soo barbaarsadeen oo baariga u ahaa baa loo dhiibtay marka dhalashada laftigeeda aniga shaki baa igaga jira ninku inuu cidda uu sheegay inuu yahay xitaa aniga shaki baa igaga jira axmed dadka Soomaaliyeedna way la qabaan nin dhaladaho 5 dawladood matala oo muxuu ahaayay Jubbaland matala oo Puntland matala oo muxuu ahaayay NFD matala oo kililka shanaad matala xasan oxygentu ka jari lahaa haduu dhalad yahay ninkani wuxuu u diiday lahaa inuu Kenya diyaaradii uu saaran yahay dul marta ama uu ku soo dego madaxweynaha Kenya qaabilo oo laba fariisto wuxuu u diidi karayay ra'iisul wasaaraha Ethiopia inuu laba fariisto qaabilo يعني wax aan u fasixin inuu sameyn karayo u diidi karayba hadii ninka uu sheeganayay yahay aan ninka uu sheeganayay shaki baa igaga jira oo la cadeyn doona baan u malaynaya wayahay waa wasiir caydiid waa wasiirka warfaafinta waan dul istaagi doonaa hadalka hadal yar ma aha waa hadal wasiir ka soo baxay waa hadal oday Soomaaliyeed ka soo baxay waa hadal sadana la yaqaanay oo waxa weeye taariikhdeeda la garanayo daraawisheed ka soo baxay weeye marka hadalkaas hadalan dhaafayna ma waan dul istaagayaa dhinaca kale to shirkii magaalada Muqdisho iyo waxyaabaha ka soo kordhay iyo cidda ka soo qayb gashay iyo maanta maalintii saddexaad iyo xaalkiisa iyo filashadiisa iyadana waan soo qaadan doonaa waxaan dhinaca kale to mid iyo labo iyadana aan ka dul istaagi doonaa khilaafka iyo aflagaadada labada waan kala qaadi doonaa khilaafka iyo aflagaadada khilaafka Puntland kala dhaxeeya dawladda federaalka waa laba taabtaan waan ogsoonahay aflagaadadana waa wax la garanaya iyadana waan waxa weeye fartan ku fiiqaynaa soo dhawaada idinkuna muuqaalka la igsaara aragtidiinu waa muhiim aynu ku bilownay wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland Maxamuud Caydiid Dirir hadaan khaldanayn mise oday baa dhaxda ku jiro ka booday waa wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland waa nin dhulbaanta deegaan ahaan SSC buu ka soo jeedaa wali waa mas'uuliyiinta ku harsan Puntland ee hadda matale joogay waxa weeye anaga SSC oo taagan oo anaga matale weeye ninkaas nin saaxiibkaya niman jecelahay ayuu ahaa ninkaas waa nin odaya waa nin siyaasiya waa wasiirkeedii oo xumaan nagama dhaxayso laakiin maanta hadalka uu yiri hadal la isku dhaafaya ma aha hadal la isku dhaafaya ma aha hadalka haduu nin dhalinyaro dhihi lahaa saameyn ma yeesheen lagama hadleen hadii uu dhihi lahaa niman xil haynin ha isagana uu ka saameyn yaraan lahaa laakiin hadalkaas nin wasiira yiri nin tin madow aan madaxiisa ku oolin baa yiri odaya waayo badan u soo joogay taariikhda garanaya yiri ninka la yirina waa wiil Soomaaliyeed waa ra'iisul wasaare Soomaaliyeed ha ahaada haddana waa nin ogaadeena la yaqaano waxa weeye Maxamed Suweera ree Cabdillah way ilaa Soomaalidu qabiil bay isku fahamtaay wasiirka marka waxaan leenahay warbal arintaas aad adigu og tahay oo arintaas aad adigu hubto cadayn baan kaaga fadhinaa anagu dhihi mayna dhulbaanta noo gafay dhihi mayna harti baa gafay hebel baa gafay dhihi mayne ninka gafay baan la hadlaynaa ninka gafay waxaan leenahay ee wasiirkaanada wasiir Caydiid walaalo waxaan ka rabnaa cadayn baan kaaga fadhinaa ninkaas inuu garac yahay oo wacal yahay oo uusan waxa weeye ogaadeenahayn oo wuxuu sheeganaya been tahay oo waxba kama jiraan yahay oo nin hawiya uu yahay oo ay soo korsadeen oo iyagu ay dhaleen
oo dadkii laga qaxay uu yahay waxa weeye wacladaha wax ka haysta la waaye 91 laga qaxay uu yahay cadayntii baan kaaga fadhinaa haddii cadayn la waayo ilmaadareyaalow hadhowto yaan wax la isku qabanin tolku wax iskuma qariyaan hadhowto yaan wax la isku qarin hadhow yaan wax la isku qabanin hadalkaas waana dhibay waa ka xunahay annagoo og siyaasad ahaan xamse meeshaan kala taaganahay annagoo og matalaad ahaan meeshaan kala taaganahay annagoo og wuxuu yahay iyo meeshuu ka soo jeeday iyo qoyskiisa iyo ehelkiisa iyo qaraabadiisa naqaano garanayna annagoo og oo aan ruuxna maanta weydiinaynin war xamse waaya aan dhahayn aabbihii iyo adeerkii iyo walaalkii iyo ehelkiisaba naqaana qoysku ka soo jeedana aan garanayna taariikhdooda oo qoys fir ku leh macsi amaba garacnimo ama waxa kule ayn ahayn waxaan haddanana rabnaa oon tixgelinaynaa inaan caddaynna loo keeno caddayn baan weli inaga sugaynaa haddaan caddayn weyna soo maaha ilmaadereyaalow hadhow yaan wax la ysku qabanin taa caydiid baan leehay caydiid baan caddaynta uga fadhinaa iyo ninka walaalkii ee markaa garabkiisa jooga waxaa imaaday xamse haddii uu marxuum yahay iyo hadduu marxuum ahaynba waa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee waktigiisa la dhamaysta madaxweynihiisa waa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey oo waktigiisa la dhamaysta madaxweynihiisa 11 bilood baa u dhiman ma naqaana 11 bilood ila cuni doono laakiin waktigiisu waa isla dhamaystay hadduu xun yahay hadduu fiican yahayba ninka la shaqeeya ee wada shaqaynayeen baa og hadduu musuq maasuq yahay hadduu nin beenaale yahay hadduu nin shaqo xun yahay hadduu nin fiican yahay shaqo fiican yahay ninka la shaqeeyaa og taasina iyadana taa u dhaafi maayo xagga khilaafka puntland iyo dowladda federaalka kama quseeyo in qofka la aflagaadeeyo qofka aflagaadadiisa shaksiga la aflagaadaynayo iyo dhaliishu way kala tahay waxaan isku ogeyn inaan wax dhaliilo oo dhaliisha dowladda la sheego oo la caddeeyo oo tallaabooyinka guracan ay qaadayaan la qaadeen laakiin hooyooyinka iyo aabbayaasha xalaalnimadooda carruurtay dhaleen in loo dhaadhacaayey waa gaf weyn aada iyo aada u weyn weye gaf aada iyo aada u weyn weye gaf ciyaara maaha anigu maanta xasan oo kale mucaarad baan ku hay madaxweynaha qaranka waxaan mucaarad ugu ahayna waa dhaliilaha taagan keliya mucaarad kumihii kale dhaliishii baan iftiimin oon leeyahay walaalkaa ka da musuq maasuqa ka da waxaa ka da laakiin ma dhihi karo xasan waa garac ma dhihi karo xaasha ma dhihi karo afkayga ma soo mari karo maanaa aabahooyadii isku guuriyey maanaa la siixanayo la jiifay maanaa og maanaa aqaana maanaa aqoon u leh maxaa shaksiyaddiisa iga galay qofkan war musuq maasuq baad samaysay war xafiiskaadi waad gudan weyday war xilkii lagu idmada waad guban weyday war 4.5 baad ku fashilantay war sidan aad yeeshay war tala adag ma lihid war go-aanada lagu kor cunaya iska daa intaasaa qofka ku filan dhaliil ugu filan laakiin in la yidhaahdo waa garac oo wuxuu sheeganaya waxba kama jiro oo waxa weeye shiki badan baa jira in lasoo baaro oo sheegashadiisa ninkan ogaadeenba maaha waa garac oo waxaa muqdisho lagaga qaxay oo waxa weeye muqdisho laga qaxay oo dadka lagaga qaxay ilaa qof haddii laga ilmo carruur haddii laga qaxo micnaheedu waxa weeye aabbihi hooyo ma dhalin waa garac soo saas ma war soo saas ma sidaa hadday tahay marka oon isla qaadanay hadalkaas maxamuud caydiid nin dhalinyaraa maaha waa wasiir soomaaliyeed waa wasiir puntland waa wasiir waxa weeye ummaddaa soomaaliyeed oo dhan reer puntland buu wasiir u yahay anigana reer puntland ahayn buu ii yahay waa walaalkay waa ninaan jecelahay waa ninkaan garab taagnaa 3 sano iyo bar ee lasoo dhaafay ilaa haddana siyaasad ahaan aan ku garab taaganaan leeyahay puntland waa laga galdaran yahay halkaas uu galay raaligelin baan uga fadhinaa ilma adeeryaalow ha la gaadhsiiyo muuqaalkaasi maxamuud caydiid anigana waan ku ataajgaran waan ku taagaraynaya idinkana ku taagareeya maxamuud caydiid raaligelin baa looga fadhiyaa ama caddayn baan uga fadhinaa labadaa waxaan ahayn oona qabataay haddaan annaga ogaadeennahay ma jirto taasi waa mida kursiga layskuma haysto ama aflagaadeeya kursiga ama kursiga waxaa weeye marxuum u bixiya ama kursiga waxaa weeye kii la gatay u bixiya ama kursigii layskaga shaqaysanaya u bixiya idinkaynii taalla laakiin hooyada xaggeeda lama soo maro xagga hooyada waa mamnuuc cunuga hooyadu dhashay ee aabbuhu dhalay ee la garanayo waa garac afkaad ku tiri caddayntiisaa lagaa rabaa taasi waa middaa shirkii magaalada muqdisho horta waxaa la iskugu keenay raggii madaxweynaha taageersanaa ee la shaqaynayey hadday noqdaan kuwii xukuumadda
iyo hadday noqdaan kuwii xoogaagooda banaanka ku qaadanay baa meesha la isugu keenay. waxaan arkayey madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle iyo ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi oo meesha fadhiyo leh waxa weeye maxaa le anaga waxaan ra-iisul wasaareyaal horaan nahay madaxweyneyaal horaan nahay shirku waa saxan yahay sidan uu sax ku yahay anaga kee waxa weeye waa ku saxana shirka waa okay si fiican buu u socdaa leh. shirki marka sheeko u noqdo horta odayaal baa meesha ku sheekaystay shir saxa oo ummad Soomaaliyeed ee masiirkeed looga hadlayay meesha kama socdo. muxaafid baa fadhiya xukuumaddii Xasan baa fadhida way ku sheekaysanayaan waqtigay iskaga dilayaan waxa weeye waxa siyaasadeed ay qabaan bay iskaga waxa weeye nafis siyaasadeed bay ka raadinayaan. laakiin shir loo furay mucaarad iyo muxaafid oo masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo doorashooyinkii soo socday sida waxa weeye soo socday sida loo qabanayo iyo waxa la isku khilaafsan yahay sida looga waxa weeye heshiin karo shir looga hadlayaay ma furmin. waxaa xiga marka shirkan 4 maalin kadib waxaa furmi doona shir kale oo isagana ay yeelan doonaan madaxda maamul goboleedyada. 3 madaxweyne maamul goboleed oo ka soo qayb gali doona sida hadda saadaashiisa laga bixinayo waa Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug. waa 3 ay isku xisbiga yihiin madaxweynaha Soomaaliya. kaasna isagana 22 bishan ayaa la filayaa 22 ilaa 25 ilaa 27 iska dhig inuu jijiitama laga yaabaa. 1 bisha soo socoto ilaa 10keeda qorshe weyn baa soo socda. qorshe weyn baa soo socda Jubbaland. marka qorshahan isagana halkaas u dhaafi maayo. waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho muqalladeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa hadduu Alla idmo.